السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن داوديال Soomaalida meel kasto joogtaan mar kale walaalka wariye Soomaali Maxamed Baruux Xuseen Xariiq Qaxootiga dhab gobolka Qoy Bari toddobaadkii la soo dhaafay daawadayaal waxay idin soo gudbiyay waraysi kaftan iyo xog ogaalnimo aan la yeeshay ama aan ka waraystay Farxaan Salaad Maxamed oo ah wiilkii bishii 12aad ee sanadkii aan ku guda jirnay 2019 ee xaaskiisa arrimo maseer darteed u basisay ama u gubtay dad badan baa muuqaalkaasi daawaday maanta mar kale waxaan la joognaa gabadhii falkaasi lagu eedeeyay waa gabadha bidixdeeda fadhida Abshiro Rashiid Aadan talow Abshiro ma tahay Abshiro soo dhaw marka hore waan dhawahay walaal waa maasan tahay magacaygu waa Abshiro Rashiid Aadan gabadhii ninkeeda gubtay ma tahay mise ruux kale oo indhashar soo xiratay talow may anigu waaye Abshiro waan kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaato inaad waraysiga nala yeelato aad waqtiga nasiiso aadna ka jawaabto su'aalahan rabnaan ku weydiino bal sifaan isku waafajina sheekadaadii iyo sheekada Farxaan goormaad isguursateen meeqa carruur isku leedihiin dadka qaar waxa laga yaabaa inay hubsan waayaan inaad kamera soo fariisato Farxaan waxaan isguursanay 2014 bishii 6 saddex ciyaalna waan u hayaa hadana urbaan u leeyahay alxamdulillah shukr kuma qasaarin guurkiisa ma sha Allah sheekada goorma dhacday waxay dhacday sanadkan bishii 12aad taariikhdu markay ahayd 13 waa maalin khamiis ay sheekada dhacday waa maasantahay mar kale Farxaan wuxuu noo sheegay in habeenkaas shaqo jirtay adiga takhasuskaadu muxuu yahay aniga foonfo waan soo bogay barashadeeda haye marka shaqo MSF hay'adda la dhaho istaalkan meel caafimaad ka helay auxiliary nurse sax marka istaalkan ka shaqeynay marna habeenan galay marna maalin galay kalkaali caafimaad baad waan gartay marka bal sidee wax u dhacay noo sheeg maxaa kugu dhaliyay inaad saygaada gubto waxa ay ku dhaliyay dhibaatooyin badan oo soo jireen 5 sano Farxaan aan wada joognay dhibaatooyin badan ay soo mareen marka waa iska dul qaadanayay laakiin hadda inaan falkaas sameeyo ma ahayn marka arin si xun u dhacday noqotay shaydaan uu ka qalib noqday bilow aadan warxumada shil oo dhaxdeena ku jiray dad ehelkiisa ay kamid yihiin marka hadana alxamdulillah shukru waa ilaahay Farxaan uu soo badbaadiyay alxamdulillah ma iskale habeenkii shaqad aadayood ku maqnay sida Farxaan noo sheegay inaad qirayso subaxdii baad cid imaatay qoonsimaad iyo waxa ku sii jiray maseer marka hore mise intaad maqnayd bay arrimo kugu dhasheen oo sidaas baad falka u sameysay maya wax maalintaas ayada arintii ugu bilaabatay ma ahayn arinta maalmay soo socotay ilaa iyo muddo 7 bari camal soo socotay warxumada shil baa dhaxdeena ku jiray waxaan soo maqlay Farxaan in laba gabdhood isaga awgeys ay isku dagaaleen meesha oo raashinka lagu qaato keer hada dhigaxayna waa aragtay meesha keer raashinka lagu qaadanay iyo suuqa waa isku meel marka Farxaan laba gabdhood isaga awgeys isku dagaashay sida la ii sheegay warkii bakan soo maqlay oo soo ogaaday Farxaan waa uu maad waxaan walaalow see wax u jira arintaas dhacday marka sababta isku daalaan maxay ahayd waxa la dhahay labada gabdhood xiriir baa ka dhaxeeyay asaga isku wada labadaba marka meeshay ku kulmeen hada wixii isweydiin la ima sheegin labadii Farxaan awgeys isku dagaaleen baa la dhahay asagana dagaal kuma jirin laakiin wuu taagnaa marka warka yaa ii xaqiijin kara yaa maxaa dhigi jiray xaqiijin isiin kara asaga Soomaha asaga aan u imaaday Farxaan oo dhibkaas aad igu sameysay kalsooni dara igu beeraysa arintaas dhacday waana iga qarisay wax u jira Farxaan Salaad wuxuu ku dhahay gabdhaha waan isdagaalna waa run laakiin relationship nagama dhixin xiriir lagama dhixin aniga gabdhaha haye maxaa idinka dhaxay maxaa isku dagaasheen mushmaca keer dhaxdiisa maxaa isku dagaasheen haye Farxaan wuxuu dhahay anoo keer shaalka iradiis iska fadhiyo oo wiilka kaarka saxay meesha ku sugay gabar meesha taagneed caag igu dhafatay caaga markay igu dhafatay maxay caag igu dhafanayaan dhahay gabadhi waan muranay tu kale to qaraabo aan hay soo booday oo aan ii heelinaysay tii waxay dhahdeen maxay wiilka caag ugu dhafan laba gabdhood meesha isku dagaaleen gabarna dhaga ka dhuntay gabarna mobile dhagdahab gabarna mobile ka dhumay sida maqlay tan mobile ka dhumay ay Farxaan isku ciidiin cawlahan waa lagu dhahay tii mobile ka dhumay waxaan maqlay in mobile loo gadaayo oo loo iibinayo marka warkii waan soo ogaaday asagii waan weydiiyay wuxuu dhahay waxa isma jiraan mobile ma dhumin ani gabarna isma dagaaleen laakiin dagaalka wuu jira labada gabdhood ayaga is dagaaleen waxayna isku ani awgeyn way isku dagaaleen
caagaas ay ugu dhafatay midda qaraabanimo ay u heelinaysa tan qaraabanimo ay u heelinaysa tuna waxa ay ugu dhafatay adag marka ma aamin warkaas ma aamini waxaan ku dhahay tan caaga markay kugu dhafane maxaa ka horeeyay tan ku heeline maxaa idin dhixiyadi farxaan warkii si fiican ugu muuqeexin kuma qancin sidii ugu qaaxay naan waxaan dhahay muddo 3 bari aan ku siinaa 3 bari aan ku siinay arinta ka soo fikir war sax ay keen anna magaaladan galo warkii waan soo dhuuxanayaa akhbaar baad raadis haye maalmaha kamid ah subaxa asaga wax aan gubi doono farxaan eedadiis aabihii la dhalatay ayaa igu tiri eedo arintan way dhacday ana wax raadis farxaan iyo gabar ay isdagaaleen ay dhacday 2 gabdhood meedin farxaan 2 gabdhood ay isdagaaleen farxaanna meeshuu taagnaa gabar cideena mobile ka dhume mobilka ana loo haystaa arinta ilaa stationka gaartay eedo ninkaada waani wala hadal maxaa yeelay fudeedkaas kuma ogeyn farxaan tuugna kuma ogeyn farxaan wali wax hadalay ma dhihin arinkaas dhacday mobilkina waan gadaynaa farxaan adeerkiis iyo ayada inay aruurna marka aanay waagaaba igu bariyay arintii way ii cadaatay maadaama eedadiis arinta ii qaxday waab ii cadaatay dhabba il dhaqatay waan gartay marka waxaan sameeyay ma garanay indhaha ay madoowaadeen cidiba daqiiqadan ku tagay aadiyaad habeenka shaqaad ku jirtay habeenka shaqaan ku jiray maalinkii maamada suuq isku aragnay way ii sheegtay subaxii markaan shaqada ka soo baxay aan magaalada isku aragnay way ii sheegtay arinkii aniga warwar baa ma karo raadinaysama waa ii bilaabay xog fiican aad heshay wax fiican soo farxaan waani ali dhahay kuweedkaas kuma ogeyn tuugnimo kuma ogeyn gabdhahaas la dagaalay mobile u dhimiyo mobilka waan loo haystaa annagaan hadda gadayna waan gartay aan ka dhaxgalo abshiro marka halka joogto intaad xaafadda soo gaarin ma go'aanka waxaad gaartay inta xaafadda soo socotay ma marka xaafadda imaataad gaartay meeqa go'aan baa kugu soo dhacay meeqa ficil baa kugu soo dhacay inaad qaado oo tirisaad samaysid go'aamo badan ay u soo dhaceen maxaa kamid ah waxaan asagoo jiifaan u imaaday maxaa la dhihi mana uu hurdayn uu soo jeeday ilmihiisu la joogay inta guruun qaata farxaan madaxa ma jibisaa way qabatay waxaan dhahay farxaan da guruun ku dhafato haddana qof xanuunsan baatay kugu soo boodiya ka celin uu ku dili nafteeda u baqay waa qodob waxaas farxaan asagoo jiifo go'aas sirrta inta ku soo laba dhinac uga soo gadiso ma ku tashaa go'a dhan ku tashaa oo guruun inta qaat irbad doo raadin inta qaat ku tashaa haddaan ruuxan si fiican uma hurdihaye hadduu kugu soo danaya ka celin macnaha bal meesha ku cel waxaa tiri go'a uu ku jiifo inta labada dhinac uga soo gadiyo inta cirbad qaata ma ku tashaa haye ilaa haddana waxaa ninka si fiican uma hurdihaye uu kugu soo toos marka go'a ku tali soo kuma dilay oo kuma soo boodaya ka celin nafteeda u baqada ana ismaad weydiinin qof nool oo soo qof nool see mara lagu tuli isma dhihin waxaas laakiin waad awoodi kartaa baa istiri waa awoodi karaa waa istiri haddana waxaan u baqay nafteeda waxaan dhahay farxaan wuu ku dili haddaad go'aan ku tashay intaa ku tali yaa ku reebi ninka si fiican uma hurdihaye wuu ku dili waa laba qodob marka dambana biyahana ay soo baxeen haye ilmahan dabaan shitay ilmahan quraacdo biyaan dabka saar waxaan u baxay biyo soo dhaamiyay wuu imaadan dib uu iska seexday haye waan u dhaartay markuu seexanay maxaa ku dhahay cad baa lagu jajari waxaan dhahay maanta ha seexanin haye ay seexanin farxaano waad u digtay haye marka asaga uu iska kay aaminay wuu iska seexday marka ani biyo ma dabka saaree waan ku shubay biyaha maxaad ku dartay biyaha waxaan ku daray basbaas iyo بس ku daray haye liin waa la sheegay ma liin kuma darin dadka warxmata shiira iska yihiin aadi waa u imaan doona warxmata shiilka dadkii marka biyaha liin kaliya ku dartay liin maxaa ku dartay liin kuma darin basbaas maxaa ku dartay waan isaga daray basbaaska adeega meesha uu yaagaala dimisha markaan ku karsaday waan isaga daray mar ilaahay waxaad tiri kuleelkaasi karkaasi waa gartay marka dhibaatadan muddo dheer ay soo socotay haye farxaan 5 sano wada joognay 5 sano cidooda iguma faraxsaneen waxaa ka mid ah hooyadii asaga dhashay farxaan iguma ay faraxsaneen ilmaan u dhalay 3 ciyaal aan u dhalay wiilka labaad markaan uu rahay oo wiilna aan dhalay ay maamadii maxaa dhigi jiray guriga iga kireysatay maamada 7 gabdhood ay dhashay 7 gabdhood iyo maamadii ayaaba gooni iigu heshiiyeen marka gabdhii way soo weerareen maamadii waa diyaar markaan la hadlo gabdheeda jaciga madhaysaada igu soo boodi farxaan way soo waday madhawaa qof xaamila tahay in lagu deelo arka ciideenan ku geeyay ciideen uu keenay farxaan maxay ciideenan ku keenay meeshan ku dhalay wiil kaleetaan dhalay wiil waan wataya wiil kaleetaan dhalay farxaan hooyadii waxay sameysay alaabta guriga waa iga soo dareerisay guriga waa iga kireysatay fadhiga waa iga gadatay 3 bari kadib ayaa waxaan maqlay alaabtaada banaanka ay taalaa guriga waa la kireystay waanteeda lahaw
marka farxaan ee waan u sheegay eedadiisa maxaa dhigay asaga uu la hadlo u sheegay eedadii baa alaabta noo qaaday fadhigana gabar dariskay isku xaafadana laga gatay marka horta dhibka dhan meeshuu ka bilowday waa hooyadiis farxaan mana dhib hore qabtay ciil hore taan qabi ciil igu soo gargaaraan haye marka guriga waa laga kireystay hadda darad bish markay ahayd taariikh 13 bisha 12 guriga aan ka soo baxay farxaan hooyadii way kireysatay guriga hadda intuu ku dhacay ka baxay bishan way kireysatay bisha 12 guriga kira loogu jiray alaabtan meel ay geysay ma sheegi kari waxay tagtay UNHCR waxay dhaday gabadhii wiilkay gubtay ma joogto Soomaaliya ku maqan tahay meel ay aad lama garna ilmihii baa gacanta igu jiran wiilkii wuu maqan yahay isbitaal buu ku jiraa waxaan u baahanahay in kaarki lambarkiisa la isiyo maamadii waxay imaatay meesha raashinka lagu qaato kaarkii way calaamadeysatay taas ha hilmaamin dhibaatada adiga laftaada waxyaabihii ku soo gaaray baan gadaal uga darayna sheegi doonaa maalinkii farxaan marka biyo wad karkarisay kadib maxaa dhacay farxaan biyaha waan ku shubay ma ibriiq baad ku karkarisay ma digsi ku karkarisay biyo badan bay ahayn bal noocay ahayn biyaha digsi aan ku kariyay haye digsi weyn haye digsi caadi cuntada sakarsan haye aan ku karkariyay aan ku gadiyay baaldi haye baaldiga san ku shubay farxaan marka inta aad ficilka sameynayso haddaad gadaal u xusuusato maxaad dareemaysay ma isla qumanayd ma sidee ahayd markaas arinteeda markaa 50-50 aad ma ku shubtaa ma iska dhaaftaa ay ugu jirtay biyaha markaan gadiyay baaldi aan ku gadiyay gacantaan galiyay biyaha weelkoodan fiiri waxaan ku dhahdana biyahan ma iska dhaaftaa ma ninka saan ku galay sababta u deeyni maxay tahay marka amar Ilaahay ku dhacday arin aan ka xumaaday noqotay waxay Soomaali ku maahday kugu dhacday ka dhacday aad iyo aad marka ani waxay igu noqotay arin ani aan sameeyay anna igu dhacday sax marka ma jacayl baad u gubtay mise nacayb ma farxaan jacayl aan gubay dadka Soomaaliya way iska warbadihiin farxaan waxa la dhahay canjeero duwaayay farxaan ilmaha habeenkii mariyaha u dhaqaa ay dhaheen farxaan naagta gacanta ugu jiray way ka adka gacanta ugu jiray dhahayaan ninkan ragga asaga cid mas'uulka asaga ani xaqayga qaaday say uga adkaan horta wax ka jira ma laha ka jira ma laha asaga marka ani meel aan aaday haduu maqan xitaa waa inaan waco farxaan oo meeshana aadi raay ka baran inaan dhaho waay qofka asaga si ani aan uga adkaan horta waa gartay warxmad shiilka ka mid tahay waxna kama jiro falk markaad sameysay farxaan muxuu sameeyay aniga markaan biyaha ku sheegay farxaan wuu soo bodanaa maxaa biyaha igu sheegay ku idhay mar labaad hadana ku celiyay waan carray guriga soo xiray farxaan wuu baxay iridu ka baxay kadib maxaa xigay ma igu soo laabanay farxaan maxaad maqashay adiga marka xaaladdu sidee ahayd adiga maxaad dareed markaas marka biyaha ku sheegay markaan biyaha ku sheegay guriga ka soo baxay farxaan irida markuu igu dambeysay uu irida ka sii baxayay meelahan garabka way ka maroobeen biyihi ka maroobeen marka waan ka naxay isla markiiba ma ka daba gashaa ma raacdaaba ay qabatay haddana waxaan dhahay marka ka daba gashay dadkiisa kuma diraayo marka ma aadeen laakiin arinteeda marka la dhahay waa la qaadaya farxaan uu ka daray referral waa la qaaday waan go'aansan inaan baxo oo gaaris loo qaaday marka arinta way cusub samo marka way ila xumaatay inaan ka daba galaan damcay laakiin dad aan qaraabana i reebay laakiin go'aan ani aan leeyahay kuma joogin waxaana maqlay farxaan walaalkiis inuu toori la wareegayo wiilkii toori la wareegaya istaalka irdiisa hadda lagu reebay maxaa soo doon intee mari marka ani inaan iska baxo waan jecel laakiin tolkii way reebay waa cabsatay waa iska cabsaday waan gartay wax lagu gaarsiin jira adiga marka laga tago dhag hadalka iyo canaanta iyo waa la yiridaas wax af iyo adin oo soo toos ku gaaray adiga abshira ah ka soo gaaray farxaan iyo ehelkiisa ma jira oo fal celin oo la kulanta wax aan hadda oo la igu dhuftay aan ku dhigi karo qofkaas ay gacan qaaday ma jiro af xumo oo dad dhalinyaro iska afxumad way jiraan aabihi asaga dhale uu soo dacweeyay station ku taa laakiin waxa lagu xiray aan ku baxsaday farxaan warqadaha soo saxiixo qoftan soo in la xiray marbtiha asaga soo saxiixo warqada inta laga qaaday gaarisa la geeyay farxaan loo geeyay farxaan warqad inuu soo saxiixo wuu diiday in lagu xiray inuu saxiixo wuu diiday marka farxaan haduu diiday ani aabihi ma soo gaarin laakiin aabaha inuu dhaaranayo oo ilaa hadda stationka uu tagaayo aniga horta 3 ruux baa badbaadis 4 ruux ilaahay ka soko 4 ruux baa badbaadis waa awowga farxaan awowgiis waa farxaan asaga naftirkiisa eedadii farxaan qaaday oo la socotay wiil adeerkiisu Cabdixakiin la dhaho 4 ruux baa mahad u celiyaan ma sha Allah ilaahay ka soko ku difaacday waan gartay farxaan in uu diiday in lagu xiro iyo ehelkiisaba ma isleedahay way ka fiicnaadeen way iga fiicnaadaha ma sha Allah aad bay iga fiicnaa weyna mahaysiin walaalkeena way cafiyay aniga hal ruux baan qalad ka galay
ninkayga un baan dembi ka galay laakiin Soomaali maxamadan waa dad ay habaarayay dad ay duceynayay dad maxaa la dhihi jiray aflagaadeynayay dad ay soo caynayay marka inta dhanna hadda waxaan wax aqoon ma laha waan cafiyay aniga xitaa waad ila kaftantay waxaad tiri fartaad igu godayo dumar badan baa wax gubi jiray maxaa anitayda u buunbuunso saxaafadda bal aniga lafta igu rid waa runtii maxaa yeelay adduunyada ani hortay waxan way soo dhici jireen naagtiisa gubta hadda ugu horeyso laakiin idinka cawlahan ahaan marka idin dhaho aniga qorsheeya iga dhigteen waana i buunbuunaysan arintii waxay dhahdeen gabadha xaaskiisa gubtay adiga taa waxa dhahday warka marka tabinayso inaa hubsato aad u fiican waxaa tiri xaaskiisa gubtay 6 saac habeenimo sariir lagu shubay dhahday maalinka aadan kaaga xumaaday waa xinaaqday aadan kaaga xumaaday ma istiri asaga laftiisa inaad biyo ku shubtaa fiicneed taada kale waxa ku dartay Kenya wax waa looga qaban waayay dalka dibadiisa in loo qaado la rabaa maxaa dhibka kugu xaqsaday arinta marka hore ma hubsatid maxaa saa u dhihi ilaa qofka yoonay siyaara qaaday wixiis waa la beegareynaya kalkaali caafimaad u haysta adna haddaad isii bubuunaysa dhahday wiilkii waa tabcaan meesha wax waa looga qaban waayay wadamo kale wax loo qaadi raba aniga hadda waxaan isleeyahay farxaan aabihiis oo kugu dhaaranayo maxamed daaruuda kugu diray macnaha inaan dhibka ka qayb qaato oo aragtaa aad iyo aad warkii soo tabisay oo duqi warkii uu fiirsado oo hooyadii warkii ay fiirsato waa waalid wax dhalay ka naxaan aad iyo aad marka waxaan aaminsanahay in aad igu dirtay oo dhibka qayb ka sameeyay waad aragtaan ani lafteeda way haysataa laakiin aniga gurmad halkan ka tagay gurmad baa u sameeyay markaan dhahaynay xilligaana waa noo sheegay ehelka noo sheegay xilli ehelka noo sheegay bahayd marka waxaan firay geel dida waxa laga madax qabtay ahayd waqti la ii sheegay waxa kale oo la ii sheegay oo markii dhaqaatiirta xaqiijin horta dibadda maana dhigin laakiin magaalada Gaaris waxa lagu qaban karaa la qorshoon ku jira laakiin kadib baan dhaqaatiirta ogaanay in wax laga qaban karo waana qaadanayaan lafteeda qaladkayga ummadda kale Soomaaliyeed waxyaabihii ku soo gaaray maxaa kamid ah waxyaabihii soo gaaray aflagaada kamid waxa daligu dhufta ma laha laakiin wiil asaga walaalkiisa 20 jir ah maalin kasta ma soo diri jiray inaad noolaato maxamed maxamed kugu talagalay hooyadii to ina hadda noolaato abad si hadasho duq maxamed kugu talagalay laakiin anaga qorsheena ma aha hooyadii waa gartay sida ay sheegtay abshir qof wax bartay baa tahay iskuulka sare bogoy tababar badan ka qayb galay xirfadda caafimaadka qaybta waliba kalkaaliye caafimaad baad baratay adigoo aqoontaas leh oo qofkii lagu dayan lahaa ah in waxyaabo dadka qaar ay ka xishoodaan ka gooyadaan aad samaysato maxay tahay kulata xumaato badan oo aan u dul qaadanay ayaa igu sameysay qofkii aan u samray aan u dul qaadanay asagana way garan waayay farxaan kala gaceel aan u qabo aan 75 maal cadoy gacanteeda uga tiri oo aan shaqeey maxaa u sameynaa kala gaceel aan qoo shaqo abuur aan u sameeyay dukaan aan u dhisay maxal dhigi 75 iga gashay walaalo shaqeyso reerkaada meel iska soo bixi hooyadiis xuna u dul qaadanay walaalihiis aan ximinayn baa u dul qaadanay asaga aan aamin oo qarashkayga farta aan ka saarana maxal dhigi uu garan waayo dumar kale inuu igu wado iyo naaw shaqaansanaya iyo gabdhaha isku dagaal hadii la dhaho aniga aad baan uga xumaaday isku darayaasha kale dalayaasha war xumatay sheeliyalsha adiga oo ku sheekay iyo kuwa kale u sheekay warkooda hadda maxaad ka aaminsantahay dadkaas warkooda ma ku faa'iido warka ku sheegan gabdhihii iyo dumarka ku sheekay warkooda ma ka faa'iiday mise ku qasaartay ma kuma faa'iido ku qasaaray aan ku qasaaray inay waxaas ii soo sheegan ma ahayn kuwa badan waxay dhahayn farxaan canjeero duwaayay ilmuhu dhar u dhaqaay waxaan ka wadaa kuwii ku dhahay islaanka uu jecel yahay tu kale la socda naaga isku dagaalay kuwaasan ka wadaa warkooda hadda ma kula saxan yahay markuu kula saxsanaayo ficilkaad ku sameysay hadda sidee kulay warkooda warkooda uu qaldan yahay warkooda inuu qaldan yahay ay ila tahay laakiin ruuxi iga saari lahaa asfarxaan aan iyada saaraya muddo 3 bariyan u sheegay 3 bariyan u qabtay 3 bari gudahooda war saxan ka rabaa maxaa ka yeelay iska dhigay muxuu maxal dhigi jiray oo shub iga yahay ma warka asaga inuu cadeeyo lama rabo inuu asaga wax fahantiisa dadku qaar waxay isweydiinayaan abshiro intaad gubi lahayd inaad isaga tagto inaad ficil kala samayso qaab kala jiri lahayd xal kale ma jirin waa runta way jiri lahayd mar baan aan farxaan inaan kala tagno laakiin calafka meesha ku jiray dhibaatooyin badan oo igu hay hadda ka horeeto oo inaan ka tago aan damcay hadda calaf meesha iska jira soo farxaan inuu ifuro mise warqadeeda isii weydiiday hooyadiisa xun iyo asaga dabeecadiisa un baan waxirka ku yareeshin weyna
wuxuuna idhaa walaahi hooyaday way xun tahay haddii adi hooyada xun tahay waan ku dul qaadan lahaa idul qaado waliga la idii jiray haddana qofkii inuu qiyaano in la isku diga waa sharaf darro nin reer leh oo ilmo loo hayo oo maxaa dhigina aan shaqaysanaynin oo ilmihii loo soo shaqaynay in haddaan la dhaho dumar waday maxaa dhig meeshii qof la taagna waa ceeb waa arin laga maxaa dhig laga fiirsado in lagu diro qalad baad baad leedahay aad lafta inaad aaminto qalad baad soo anigu ina aamin qalad ay tahay laakiin waxinaaq iyo masiir awgiis tada kale qofka dadkii warka ii sheegay waxaan si fiican ugu aamin farxaan ehelkiisa waay ehelkiisa aad iyo marka waxa leeyahay xasadku ehel uu noqon karaa asxaab kale way noqon kartaa waan gartay oo meel way noqon kartaa ma ka qoomaysay ma ka shalayday ficilka aad samaysay hadda maxaad dareemaysaa waan ka qoomamay arinta kugu dhacday ka dhacday bay igu noqotay adduunyada waxa igu murug badnay farxaan habeenkii la sii waday oo rifaarka loo qaaday habeenka indha isku ma qabanin taada kale to waa la sii waday farxaan dhaxda biyay ahayd eedadiisa khayr la siiyo waa markaan waco telefoonka iga qabanaysa ayada wiilka xanuunsan wado telefoonka iga qabanaysa xaaladiisu waan dhahay ambalaasiya iska taagan biyo meelaan marnaan laanahay lagti lagol dhahay biyo wada amka ay dhahday adduunyada taas ay igu naxdin badan aad armo gargaar laan labaadna waxay ahayd markii farxaan isbitaalka la dhigay ma tagteen manna waa tagteen kastoo neefta iga soo booday farxadeedii labaad waxay ahayd oo neefta iga soo booday markaan farxaan 20 bari kadib aan la hadlay asaga laftiisa telefoonka eediisa igu dhibsan bariya eed macaan telefoonka igu dhib hal mar aan la hadlay saan u lahaa ma hadli karo say idheeyay marka dambe khayr la telefoonka igu dhibtay farxaan waan la hadlay walaalkay wuu mahaysan yahay wuu cafiy asagana cafiskaas sidaad u aragtaa maxaad dareentay markuu farxaan kuu sheegay inuu ku cafiyay cafis aad tahay cid saxar dushaada saaran qaadi kartana aysan jirin isaga waxay dhaxmar isagana uu ku cafiyay maxaad dareentay farxad weyn aan dareemay kaliya cafiyay maxaa yeelay horaan waxaan ka fikiray farxaan adoo arkin abshiray ama uu ku cafin hadduu dhinto haddii aqram maxaa kaaga horeeya adoon ilaahay abuurtaa tahay adduunyada waxaa lagu ka in ilaahay caabudo dhibkana samaysay farxaan ku cafin hadduu dhinto haddii adduun waa aqara waa ilmihi kuga agoonto waayin oo maxaa dhigi jiray wax sabota ka heli ay jirin cidii oo qodad gari dhici karto ilmihi laga qaato dhici karto adduunku waa laga bixibo laakiin tii aqara aantan u fikiray maamada hooyaday khayr Allah siidan waxay igu dhiirigelisay abshiray dhibkan Soomaan sameeynaha jiif wax la dhaho oo ku yaalo ma jirto adeeg jiif is iloow tusbax ay soo gad oo 100 xabe waxay dhahay yaa Allah oo 100 jeer dheh subhanallah oo 100 jeer dheh caaw dhan tuko salaatul leyl asmal habeenki karso habeenki haba seexaninbo salaatul leyl tuko marka ma duceysanaysid mise asaa u duceynaysid ma ya asaa u duceyn ilaahay caafiyo inuu ilaahay cagaha ku saaro inuu gacantayda ilaahay ku sababin adduun waa aakhira waa in aan igu dhicin aan ka fikiray marka walaalkay muxuu ii cafiy farxad weyn aan dareemay alxamdulillah shukr ilaa hada oo duceyn ilaahay cagaha ku saaro ma sha Allah farxan wuxuu sheegay inuu ku cafiyay in maaragtay waxba uusan ku haysanin ana laftana farxad bay noqotay in la is cafiyo hadda xaalad waa sida farxan waa la soo celiyay ma booqan rabtaa xaalad waa sida wali ma booqan farxan waxaan u booqan waayay ehelkiisan ka cabsaday ani xumaan igu jirto ama farxan cabsi ka qabo maxaa dhigi uma tagi weyn laakiin aabihiis iyo hooyada dhashan ka cabsaday iyo walaaladiis oo leedahay way ku dhaaranayaan la meeshii wali dhaawici baa jirayo dhaawici jira way ka taagan yihiin marka waxaan dhahay dib weyn in ka sii dhacal arkaasaan uga joogay waraysiga ma la weyto su'aalaad qoonsataa jiray sida ay sheegtay maxaa kamid ah su'aalaad qoonsatay ee farxaan aan la yeelnay waxaa kamid ah waxaa dhaday farxaano gabadhi sidan ku yeeshay wada cafiis Soomaha maxaa rajo oo ka sii qabtaan ma dhahday marka arintaas aadan u dhibsaday inaad hay adi maxaa rajo qabtaa adi aan haddan ku weydiis la su'aashaas reerka sida jeceshaad reerka inuu ahaado reerka soo ilaahay ka dhigay noqon aadiyad soo ilaahay ka dhigo bay noqon reerka farxaan wuxuu sheegtay inuu cabsi qabo aadiyad cabsidana tal uu ka cabsay oo aniga iga cabsanay aadiyad wuu maahay wuxuu dhahay libaax wuxuu dhahay bari ka goostay oo meesha uu sii jira gal hadii lagu dhaho oo macnaheedu tahay adiga gubto baa meesha joogto sidee lagu aamin waay aniga asaga aniga bay ka cabsay saas buu dhahaa anigana laba ruux aan ka cabsanayo haye ani asaga oo cafiyana waan ka cabsanayo abshiray cafiskan lagu cafiyay ama been tahay oo shirqool ay tahay asaga gacantiisa uu raba inuu kaaga arsado waa koow waa mid waan ka cabsanayaa
farxaan eheladiisa iyo hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii asaga la dhasheen farxaan hadduu ku cafiyo oo maxaa dhihi reerka uu sidiisi ahaado xitaa kuwaas baa ka aarsanaya adduunka waan ka fikiraya ana labadaasaan ka cabsanaya farxaan dad tolkiisana ka cabsanaya asagana cabsiyaan ka cabsidaada xagga u dhig adiga maxaa ballanqaado haysaa hawshaas in waxba ka imaanayna hadduu reerka dhisnaan hayo oo reerka sida ilaa hadda weli waa isqabtaa inay soo farxaan sheegay cabsidaa maxaad ku bixin kartaa oo maxaad damaanad qaado oo ballanqaado samaynaysaa adiga aniga ma ani falxun baan sameeyey haye haddana maxaa la dhihi jiray inaan mar dambe samaynayo ma malaynayo ama iyo marroona aakhira adduun uma roona aakhirna uma roona haye wallaahi billaahi tallaahi mar dambe samayna ma dhaad ma ku dhaaratid aan markhaati ka hana annagana ma wallaahi ma samaynayo haye shalay soo intay gabdha adiga kule ku sheekeen ma samaynin armaadana bari shalay biye ahayd dadka qaar xisleen bari ama toori gelisaa maya arin xuma arintaas anna iyo marroona adduun uma roona aakhirna uma roona marka anaa hadda ku faraxsaneen baa ka qoomameynaya wixii aad samaysay waan gartay inaan mar labaad ku sii laabto ma rajeynayo ilaahayna iguma celiyo waan gartay su'aal kale aad ibsato ahayd aan weydiiyey farxaan oo ahayd arooskaada arooskaada ay qarin ma ku dhax qarnaa warunta haye arooska farxaan haddaan kala tagno alxamdulillah shukr u wadaan soo dhaw haye dad saas u kala go'aymanay laakiin adiga kasta waxaan ku dareemay inaa arintan buubuunayso aad leedahay farxaan oo qof kale iska guurso oo gabadha warqadeeda si oo arooska dambana hadii waxa isku ogeeyay laakiin ma dhihin sama waxaan dhahay arooskaada laakiin ani waxay ila noqotay adiga saas u qaad ani saas u qaad weli ma lisdii kara masirka kugu jira maadaama aniga lafteeda su'aalaha ka masirta abshiro weli waa masirkii waa calaamadii waa ka muuqda la dhihi karaa ما يلا ما ليش كرا هي هذا قفك إن هذا محل يجي صدقن ولا هذا الشو برجينا مو شيء إن مش مع الحديد هذا فرحانه حاسك محل رجوك قبطة إن هذا استوى يرد في صدق حد بدن وصوماليات بوريسك فرحان يعفس كدب وحيليه بارود وحد قيب قاطع سدور هيك عجيس وستاجي لها هيك كوسي لسنان لها هذا محكو تلين له صايكو في عنا شو أنت ما هذه السؤال هذا ما تجوجنا هذا كويديو ما هذا قانك أسرع إسكال مكت قانك أسرع إسكال هذا كيس ولا لك واحد طلع ديو ملا هذه أنا عارف إسكال صيبة ضمبانية لها هلا عفية ما انقرتي سلاش شيكتي من كاد حقوق مسير صوص ما مسير أنقب إنك وحمان وما قبل جعلان جعلها أنقب مسيرك محوي طلع موالبة مجعلبة مفيوبة مهيت والله ما عندي كرا هذا وح ما كان ديبك كل عضو وبواء وبري مركا واسك والله ما عندي كرا أنا هذا كور فعل نوع عسكر ما كون فكرت أنت تكور ما هي ولي ما فكرن ولي ما فكرن أرين كاس ما كان حتى سوس بعدك ما فكر ما إسكح عناقي وما أصلها اللي كري لكن ما كان عدة ما هذا بعرتس أنقو أنصد تذكر حسوا الدين هين أفر برا قالوا بني كل جابك قبي فرحان سووا الشيء حتى تبرر إسلام كلا كجور سلمون قبين nin wax kale meel ku haysta ma ahayn nin adigu kula daala dhacay carruurta isla kursanayeen buu ahaa maxaad isaga u aamin weysay oo dadkan kale hadaladooda u aamin talo waxaan u aamini waayay asaga aan rab inuu warka iga xaqiijiyo warka iga ma xaqiijin kuma qancin maalinka aan weydiiyay wada waxa dagaalkan uu jira kisto fiir waxna uu ii sheegay waxna uu iga qari bas dhigi kara dhag war cunta war labaad cuntaada ahayd oo war hore ku sii horeeyay ما يلا ما ديك كرو حيل أسجع محل يجي أن ربي إنه صفي عيقان هي وحي جربه حطوا يدو حتى ولا الله ويجرته وانسميه قال ذي كود عده مرضى بنا ما دعيس واسك عملها يعني لكن أسجع محل يجي صفي عنه موسم موجين رنتيس ما علين كان وجودن بس كذب يلا مو هذا سدح البرية وقفتنا ويا دافته ما شاء الله بلان وقفت سدح برية وقفت سدح برية وقفت دمر كلا جيابو إن فلك النوع عنو كلا إن كوفي كرايا أو مسيرسن أم وحيابها النوع عنا maadaama adiga aad 10 hadda qaadatay maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa marka la masir in masirka laga fiirsado inuu talab badan la qaato ma kula talin lahaa oo qaladka durba lagu dhadhicin loo fuudaan ma sha Allah wasdi kara adaaba show fiicnaan lahayd inaad dadka la taliso hadda ka bacda hooyadii masirka aad noqoto waan la talin karaa wallahi waan la talin karaa wixii waana waan siin karaa because ana igu dhacday ma sha Allah waxa la soo arkay aad iyo aad DBDF waxay leedahay ana soo arkay waan la talin karaa ma sha Allah markii kugu darneed goorma ahayd inta arintan dhacday xilli kugu darneed kugu walbaar badneed markii laga soo tago marka kale kugu walbaar ka barday xilliga ahayd
waxa iigu walbahaar badnaa Farxaan markii la dhahay referral loo qaadaya Farxaan waa sakaraad wuu darsaday istaalka MSF lama seexin rabo referral loo qaaday ada waxa leed hayra kulaado istaalka baa la seexin daawan baa la siinay waad u tagayaan lahaa galabta baa u tagtay aslaha inta warka la geeyo صح marka arintiisan ku tashanay may noqon inkastoo aad sheegatay oo tiri la ima turin haddana cidda ama kuwa ku cafiyaha ama kuwa kale ay laftooda ku soo hadlaha ahaadaan oo geedta fooda ku haya maadaama dadkii la xakameeyo ma kasti la xakameeyay markii kale reerku reer gob ah reerku waa reer gob ma sha Allah laakiin hal barura qormisa wala ma qashay dad malaa'ig lama wado waan gartay laakiin dadka way badan yihiin aadiyad inta fiican ayaa aan ku afar ruux bis aan ku dhahay ma sha Allah afar ruux bis waan maxay ida saytiga wanaajisay asxaan ii fashay laakiin hooyadii aabihii dhaleen ani asxaan ii may farin aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa daawadayaal mar kale waxaan idin leeyahay idinkan aad ku mahadsantihiin daawashadeena barnaamijkan oo ay marti noogu ahayd nala joogtay nala falanqeynaysay waqtigeeda naga ogolaatay Abshiro Rashid Aadan oo ah gabadhii hadii saygeeda gubsadan ku dhaaxinaaqin gabadhii u soo xaydatay u soo guguntatay xinaaq isxajin weeyday markii dambe intay maseerta loo soo sheekeeyay wadaadkeeda biyaha kulul baaldi biya laba jeer ku shubtay baaldi biya ku shubtay waxa xusid mudan in Abshiro ay ka qoomameynayso ka shalaytoonayso aysan sida sheegto ku faraxsanayn wixiina uu ahaa wax ficil iyo masayr iyo la yiri iyo sheeko qaaday sidoo kale waxay qirtay in ay ninkeeda u gubtay ama falka u dhacay sidoo Farxaan ba sheegay oo ah warda diiri iyo shaki balse wax kastaba qadarta Allah ay ku dhacday isla markaana aad ugu xun tahay ilaa haddana ay ka warqabto cafiska walaalkeedna aad iyo aad u soo dhaweynayso iyadana ay cafisay dad badan oo aniga laftaan ku jira Soomaa أنا تبي عفيس. أنا كو عفيس حكم مثلا. هذه أدوب ما سنتهين ورحمة الله بدنا أسكجر أنا لفت مركز ساك حافظ السوق لها وعبسن هي حالة مركز لسه هلا لو هلا إنه عبسن أبشر وأنا عبسن وكوش شيء سوي. ها إيش أكتور أنت. قولي هذا السوق لإنه مركز سوق لإنه وسوق لو بناك دعنا فريستو نينا صاحب من هو ساك عن إريني وشيء كان سو سمين ربا أرنتاسن حلقة ka shaqeeyay wuxuu hal samee meesha tagay dad tagtana guriga gal marka maaragtay shaki yaqiin looga bax ani Abshir wax ima yeelin waa gabar taas wanaagsan ee Soomaaliyeed qof kastana qalad waa ka dhaca kuwa dad dilay kuwa dad dhaca kuwa gabdho kufsada kuwa dawladda dhisan soo dumiya waliba maaragtay Abshir waxaan aad uga mahadcelinaa inay qaladkeeda qiratay ka qoobameynayso cafisna ay dalbatay la cafiyeen aad ugu faraxsantahay sidoo kale de Soomaali badan baa soo wacdo dhahay reerkan waxaan rabnaa inuu sii dhisnaado reerkan uu dhisnaadana waan rajaynaynaa waxaan rajaynayaa waliba arooskan sheegayna aad noqoto mar kale ya inshallah soo sidaas ma inshallah marka aad ugu mahadsantiin mar kale walaalka wariye Soomaali Maxamed Baruud Xuseen waan uga mahadcelinayaa qof kasta oo muuqaalkan daawada waxaan rajaynayaa in aan dhanka wanaagsan ka eegno in aan reerkan u duceeyno in aan gabadha lafteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida sheegto way bareeday ducada Ilaahay ka aqbalay wadaadkeedana hadda uu soo caafimaadaya Farxaan aad buu runtii niyadiisu u wanaagsaneyd anigana waxaan leeyahay mar kale iyo mar saddexaad gaar ahaan dadkii channelkan Dada Media channel ku xirna aad baan runtii uga mahadcelinayaa dadaalkiina iyo daawashadiina iyo ka warqabka aad iyo aad ugu mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.